حاجة وسعت هذه ما يوتو محاك دونيس نولا لك دوننا هذا منو الاسمية منو igraan jamaal cabdi oo ah gabadha uu hadalkeeda baraha bulshada qabsaday waxay markan taagan tahay maxkamadda gobolka Banaadir oo cishooyinkan uu ka socdo kiis ku wajahan rag wax tahriibiya oo lunsaday dhaqaalihii ay u dhiibteen dhalinyaradii tahriibka beegsanaysay igraan qudheyda oo qayb ka ah kuwa daneynaya inay dalka isaga tagaan ayaa ku jawaabtay weedhan qalbi taabadka ah ee muujinaysa sida dhalinyarada Soomaaliyeed ay uga rajo dhigeen dalkooda inkastoo Soomaaliya ay soo kabanayso haddana duruufaha amni iyo kuwa shaqo la'aaneed ayaa dhalinyarada ku xambaaraya inay raadsadaan nolol dhaanta tan dalkooda hooyo waxaana eedda loo tirinayaa siyaasadda dalka oo uu majaraha u hayo siyaasiga Soomaaliga ay wahankiisa ku foogan yahay qoriga iyo nidaamka qabaliga rajo xumida siyaasadeed ee jirta waxay qasabtay in marba marka ka dambaysa ay kordhaan tirada dhalinyarada xusulduubka ugu jirta tahriibka si ay meehanaaga uga saaraan mustaqbalkooda una beegsadaan wadamada kale ee dunida oo ay aaminsan yihiin inay noloshooda ku bulaalayso iminka waxaa xoog usoo ifbaxaya laba marin oo ka duwan kii Liibiya ay Soomaalidu ku madheen waxaana loo diga roganayaa marinka jasiiradda Mayotta iyo dariiqa Morocco iyo Mauritania oo isna ah marin tahriib oo si weyn usoo shacbaxay muddooyinkii ugu dambeeyay haddaba aynu ku horeynay Mayotta maxaynu ka naqaanaa Mayotta waa jasiirad ku taala badweynta Hindiya gaar ahaan waqooyiga kanaalka Mozambique oo u dhaxeeya dalalka Madagascar iyo Mozambique jasiiradan waxay juqraafi ahaan ka tirsan tahay silsiladda jasiiradaha Comoros hase ahaatee waxay siyaasad ahaan si rasmi ah u hoos timaadaa dalka Faransiiska ayaa u bixiyay jasiiradan magaca Mayotta isagoo magacan ka keenay magaca Carabiga ah ee Jasiiratul Mawt oo looga jeedo jasiiradda dhimashada Mayotta waa dhulka ugu sabalsan dhammaan dhulka Faransiisku maamulo iyo sidoo kale guud ahaan dhulka midowga Yurub jasiiradda Mayotta oo noqotay mid marin u ah tahriibiyaal badan kuwaas oo ka kala yimid dalalka Afrika sida Soomaaliya ayay tahriibiyaashu qorsheeyaan inay uga sii gudbaan wadamada reer Yurub muddooyinkii ugu dambeeyay kumanaan Soomaaliya ayaa u safray jasiiradan waxaana badankooda ay safarka kala kulmeen dhibaatooyin kala duwan safarka tahriibka ee jasiiradan oo ah mid qarsoodi ah ayaa wata halistiisa waxaana dhacda in Soomaali badan ay badda ku geeriyooto halka kuwa kalena ay u gacan galaan ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Faransiiska waxaana jira dad lacag looga dhacay tahriibka iyagoo aan gaarin goobta ay doonayeen geesta kale dariiqan tahriib ee u dhaxeeya Morocco iyo Mauritania ayaa isna ah marin halis badan waxaana adeegsada muhaajiriinta doonaya inay gaaraan jasiiradda Canary ee dalka Spain markii hore muhaajiriinta adeegsada dariiqan oo qaar badan ay doonyo la qalimeen waxay u badnaayeen kuwa ka yimid dalalka galbeedka Afrika laakiin hadda waxaa ku biiray tahriibiyaasha ka imaanaya dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika waxaa sidoo kale jira in dhalinta tahriibaysa ay marin u noqoto dalalka Turkiga iyo Greega taas oo ay u fududeyso sida dhibka yar ay ku helayaan fiisaha Turkiga waxaana badankooda ay iska dhigaan kuwa waxbarasho ama caafimaad u tagaya Turkiga halkaas oo qorshahooda tahriib ay ka sii wataan iskuna dayaan inay ka talaabaan xuduudda Turkiga uu la leeyahay Greega Soomaalida ayaa muddo ka badan 25 sano caan ku ahayd arrimaha tahriibka marka loo eego dalalka geeska Afrika waxaana sanadihii hore si ay u gaaraan dalalka reer Yurub marin u ahaa Liibiya iyagoo cagtooda maali jiray ama gawaari qufulan looga talaabin jiray saxaraha u dhaxeeya Suudaan iyo Liibiya waxaana kolka ay Liibiya tagaan ay tacadiye kala kulmi jireen ragga magafayaasha ah kuwaas oo ehelkooda ka dalban jiray lacag madax furasho ah iyadoo kolka laga bixiyana ay wajihi jireen safar kale oo qatar ah oo dhanka badda Mediterranean-ka ah doomaha ay raacayaan oo aad u tayo yar ayaa misna u horseedi jiray xaalad kale oo isbiimeyn ah balse marinadan cusub ee tahriib ayaa iyaguna ah kuwa halistooda wata dhalinyarada nolodoonka ah oo aanan aqoon marinada tahriib ayaa lacaga siiya rag muqallasiin ah oo dadka tahriibiya kuwa oo mararka qaarkood halis geliya nolosha dhalinyaradaasi beydadka ah waxaana xusid mudan in kuwa wax tahriibinaya qaarkood ay saameyn ku leeyihiin siyaasadda dalka amaba ay xilal hayaan taas oo soo koobaysa in tallaabo ay dawladdu ka qaado si kastaba nidaamka dawladnimo ee aan awoodda badan lahayn iyo duruufaha ku gadaaman dhalinyarada ayaa sare u qaadaya inay u hanqaltaagaan dalal shisheeye si ay u helaan nolol dhaanta tantaala dhulkooda hooyo waxaase waqtigan lagama maarmaan ah in wacyigelin loo sameeyo dhalinta dawladduna shaqo abuur ay u samayso kana faa'iidaysato cududooda maadaama 75% Soomaalida maanta ay yihiin dhalinyaro